kulanti waxaan daawadaalkuna soo dhawaada wararkii warbixinadii ugu dambeeyay Soomaaliya ee caalamka qodobada wararkaanu ku soo qaadanayna warkeena caawa waxaa ka mid noqon doona gaari ay la socdeen imaamka beesha Madulood iyo waliba odayaal kale oo lagu xabadeeyay gudaha magaalada Muqdisho maxkamadda ICJ oo Kenya ka diiday dalabkeeda had inuu dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya Jawaari oo shaaciye qorshaha madaxweyne Farmaajo ee shirka 15 Febraayo kulanka isku hayay madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada oo hab cusub loo qaban doono iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ayaanu daawadayaal ku soo qaadan doonaa wararkeena iyo warbixinadeena caawa waa 13 bisha Febraayo daawadayaal 2021 oo diyaar garooba daawadayaal wararkaasi oo faahfaahsan war ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ayaa waxaa looga hor yimid dalabkii Kenya dhawaan u dirtay ee ahaa in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya waxay maxkamaddu sheegtay in aan dib loo dhigi doonin oo kiiskaasi la dhageysan doono 15 bisha soo socota ee Febraayo waa dhabarjab xooggan oo ay Kenya ay wajahayso iyadoo walaac laga qabay arrintaasi maadaama ay dhawaan ay Kenya dalabkaasi gudbisay balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa arrintaasi si adag uga jawaabtay waxayna sheegeen inay ku kalsoon yihiin maxkamadda ICJ ayna weyn doonto haddii ay mar kale dib u dhigto buu yiri dacwaddaasi in ay noqoto mid ay go'aanada gaaran yihiin mid la qadan karo xukuumadda Nairobi ayaana la ogeyn go'aankeeda cusub ay ka qaadan doonto xilli ay sheegaysay in qareenadii difaaci lahaa ay bedeshay isla markaasna Soomaaliya ku sheegtay dal aan dawladda ka jirin arrintan ayaana waxa ay ku soo aadaysaa xilli sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wajahayso culeysada doorashada walow ay xukuumaddu ay sheegtay inay diyaar u tahay in ay ka qayb gasho dhageysiga dacwaddaas oo dhici doonto 15 bisha Maarso ee nagu soo fool leh iyadoona muddadaasi ay Soomaaliya weli aysan ka jirin wax doorasho ah oo ilaa hadda loo dareeray dhanka kalena daawadayaal wararkan ka helena gudaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gaari uu la socday imaamka Madulood imaam Maxamed Yuusuf lagu rasaasiyay magaalada Muqdisho isla markaasna uu ka dhashay khasaare wararka ayaa waxa uu ka dhacay baa layiri aaga maxkamadda gobolka Banaadir waxaana lagu waramayaa inay geysteen ciidamada ilaalada asluubta ee xabsiga dhexe wararka ayaana sheegay in gaariga la weeraray sidoo kale imaamka ku helinayeen xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka beesha Madulood kuwaas oo ka soo laabtay gogasha tacsida General Maxamed Nuur Galaal sidaan xogta ku helnayna gaariga ayaa waxaa la rasaasiyay markii uu ka soo gudbay kontaroolka koowaad ee wadada hormarta xabsiga dhexe uu soo gaaray kontaroolka labaad ciidanka asluubta ee wadadaasi ku leh kontaroolka ayaana rasaasiyay gaariga imaamku ay la socdeen askar ilaalo waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray ilaalada iyo laba ka mid ah xubnihii dhaqanka ee la socday imaamka ilwareedada lagu kalsoonay ayaan warbaahinta ogaal miidiya caabu u sheegay in ciidamada ilaalada asluubta hore loogu wargeliyay in gaariga la socdaan duubabka dhaqanka Madulood mana cadda sababta ay rasaastaasi ugu fureen waxaana hadda la sheegaa in guriga imaamka beesha Madulood uu ka soo conayo shir xasaasi ah kaasoo u dhaxeeya qaar ka mid ah madaxda dawladda ugu horeeyay wasiirka amniga ee dawladda dhexe federaalka Soomaaliya oo guriga imaamka gaari kadib weerarkii ku dhacay galabta markii uu soo mariyay aaga xabsiga dhexe waxaana ilaa hadda la ogeyn in arrintan ay tahay mid ay si ula kaca u filiyeen ilaalada xabsiga dhexe iyo weliba inay tahay baa layidhi inay ku khaldamayeen iyadoona wararkaa soo baxay ay sheegayaan in imaamku aad uga xanaaqay arrintaas isla markaasna ay dhalisay baa layidhi inuu si toos ah u waco madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona la sheegay inuu ka gaabsaday inuu la hadlo warbaahinta kadib markii la sheegay in lagula taliyay in waqti xaadirkan aysan munaasab ahayn inuu warbaahinta si toos ah ugu sheego waxyaabaha jira waxaana wararka aan helaynay sheegayaan in maalmihii ugu dambeysay ay soo kala dhex gashay khilaaf xooggan imaamka beesha Madulood iyo waliba madaxda dalka iyadoona la sheegay in ay arrinta isku hayaan ay ugu weyn tahay doorashada dalka gudoomiye hore baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Cusmaan Sheekh Jawaari ayaa sheegay inay tahay arrin olole doorasho ah kuraasta gobolka Banaadir uu dhawaan saxiixay madaxweyne Farmaajo Jawaari ayaana sheegay inay tahay waxaan wanaagsaneyn in kuraasta gobolka Banaadir loo adeegsado olole doorasho balse ay tahay xaq uu leeyahay gobolka Banaadir Jawaari oo su'aalo laga weydiiyay barnaamijka dadwadaag oo ka soo qaybqaabisay warbaahinta maxalliga ee Muqdisho ayaa waxa la weydiiyay su'aalo ku saabsan mustaqbalka 13 kursi ee la jira ha laga siiyo aqalka sare gobolka Banaadir
wuxuuna ka sheekeeyey inay sanadkii 2016 soo martay arrintan islamarkaasna baarlamaankii sagaalaad uu go'aan ka gaaray sida uu sheegay, wuxuuna qiray in xamar ay xaq u leedahay lana siiyo wax xalaala, balse in ololo siyaasadeed iyo ololo doorasho midkood lagu galaysan isaga la fiicneen. aniga waxaan jeclahay marka qof wax la siinayo in si xalaal ah wax loo siiyo, laakiin in ololo doorasho mid siyaasadeed laga dhigto ma jecli. xamarna xaq way leedahay, baarlamaankii sagaalaad go'aan cad ayuu ka gaaray buu yiri inkaasi. si kastaba ayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ansixiyay 13 kursi ee gobolka Banaadir walow aan wali la horgeyn baarlamaanka. haddana Professor Jawaari wuxuu u arkaa inay tahay ololo siyaasadeed iyo weliba mid doorasho in xilligan lagu soo aadiyay waqtigan. arrinta ayuuna sheegay inay tahay in ay dadka gobolka Banaadir aysan ku kadsoomin buu yiri go'aanada degdega ah ee xilliyada ololada doorashada la gaaro. xoog lagu kalsoonaya aan ka helnay sheegaysaa in shir u dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir uu ka furmi doono magaalada Baydhabo si xal loo gaaro ismarinwaaga ka taagan doorashada. xogtan ayaana sheegaysa in wakiilo ka socda dhinacyada oo ka kooban mid laba xubnood ay maanta tegi doonaan magaalada Baydhabo si ay uga wada hadlaan qodobada la isku hayo ee saldhigga ugu ah heshiiskii doorashada ee Sebtembar 17. ila wareedida warbaahinta ogaal ayaana waxay intaasi ku daraysaa in shirkani ay soo qaban qaabisay beesha caalamka ayna doonayeen dhammaanba qodobada la isku hayo ee heshiiska ka gaaraan gudiyadana ka hor inta aysan kulmin madaxda dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka. beesha caalamka ayaana lagu waramay inay arrintani soo jeedisay si meesha looga saaro fashilka joogtada ay ku yimaada shirarka madaxda, kuwaas oo ay u aragto kuwa badana u abuura hadal hayn badan, cadaadis iyo jab xoogan. wararka ayaana intaasi sheegaya marka gudiyada ku shiraya Baydhabo ay ku heshiiyaan qodobada la isku hayo ay hor keeni doonaan madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedka gobolka Banaadir si ay kama dambaysta u saxiixaan, iyadoo ay la qabanayo munaasabad saxiixa. weli go'aan lagama gaarin halka ay ka dhici doonto munaasabadaasi, balse waxay u badan tahay caasimadda magaalada Muqdisho. arrintan ayaana imaanaysa kadib markii Puntland iyo Jubbaland ay dhowaan diideen in shir uu ku ujeediyay madaxweyne Farmaajo lagu qabto Garowe, iyagoo ku baaqin shirkaasi uu ka dhaco gudaha Muqdisho. waxay sidoo kale meesha ka saaraysaa baaqi ay Puntland iyo Jubbaland ah in saamileena siyaasadda dalka laga qaybgeliyo wadahadallada, waxaana muuqata in beesha caalamka ay diidan tahay in wadahadallada la ballaariyo islamarkaasna lagu daro kooxda mucaaradka. ma cadda haddii gudiyadan ay awoodda u yeelan doonaan inay heshiis ka gaaraan qodobada ay isku mari waayaan madaxdii iyaga ka sarraysay. arrintan ayaana waxay sidoo kale la sheegaa inay fududeen u tahay arrimaha horyaala baa la yiri xukuumadda, taasoo ku aadan in aysan macquul ahayn in magaalo shir uu ka socdo muddo 5 maalmood islamarkaasna aan wax heshiisa laga gaarin. waxayna taasi beddelkeeda la soo jeediyay in gudiyadan ay heshiisyada kama dambaysta ay gaaraan si loogu gudbiyo madaxda ugu sarreysa oon keliya saxiixa. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warka caawa tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.